Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo isniinta saa dambe dhici doona loogana xaajoon doono aqoonsiga Somaliland ka heshay Israel ee kiciyay waxa dadka qaar ugu yeereen duufaanta diblomaasiyadeed ee aan filashada ku jirin. Soomaaliya ayaa isku dayaysa inay 15 xubnood ee golahani ka kooban yahay ku qanayso ka hor imaanshaha aqoonsiga ee Israel siisay Somaliland, halka docda kale Israel lafahanteedu doonayso inay xubnaha golaha taageero uga hesho go'aankeeda oo safiirka nidaamkaas golaha u fadhiya ayaa bashaaciyay inay Israel ahaan difaaci doonaan go'aan aqoonsiyeedkooda. Docda kale midowga Yurub, Iiraan iyo xitaa Koonfurta Suudaan ayaa ku soo biiray dhinacyada taageeray midnimada daled ee Soomaaliya. Midowga Yurub waxa uu si gaar ah ugu baaqay in wadahadal lagu wajaho xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo tusaysa inay arkaan in Soomaalidu iyagu xallisan karaan isdiidooyinkooda maxalliga ah. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhinaceeda weli ku howlan dadaalada diblomaasiyadeed ee ay arrintan ku wajahayso. Shirar qaran oo fila Soomaaliya ay iclaamisay wada tashiyo maxalli ah iyo xiriiro dibadda ah oo aan joogsi lahayn ayayna Muqdisho ku mashquulsan tahay.